soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan dalkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya deegaanka Geerisa oo hadda markaa ka soconaya dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada Samaroon iyo kuwa Somaliland ciidamada beesha Ciise oo dagaalkaasi ku biiray kadib markii ay dib u gurasho ay sameeyeen ciidamada beesha Samaroon haddaba maxaa ka soconaya deegaanka Geerisa banaankiisa oon kula wadaagi doonaa saaxiib yaal xogtaasi oo faahfaahsan sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh saaxiib yaal dalkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya ciidamo ka tirsan militariga Somaliland ayaana markaa ku soo biiray ama ka soo dhaqaaqay magaalada Boorame iyagoona ku soo biiraya dagaalka adag ee hadda markaa soconaya sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya meedadka askar ka tirsanaa beesha Samaroon ayaana lagu arkayaa goobta dagaalka uu ka socday tiro intee leeg ayaa halkaasi loogu dilay muuqaalkan ayaa saaxiib yaal idinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idiin qarinayo ayaad saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horeysay fadlan kanalka rukumo subscribe dhe muuqaalkan aad daawanaysiina la garay siina share garay saaxiibadaada la wadaag maasanin daawade hagaag aynu ku bilowno waxaa hadda socda dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeyo ciidamada beesha Ciise waa beesha Samaroon iyo Somaliland deegaanka Geerisa ayuuna markaasi dagaalkan ka socda saakay iyadoona dagaalkan waxba la isku reeban dhowrkii saacadood ee u dambeeyay 48 saacadood u dambeysay waxaad moodaa in Samaroonku Ciise isku dhinaca ay si toos ah u wajahayaan Somaliland maadaama markii hore haddii Samaroonku iyo Somaliland isdagaalaan Ciise indhaha ayuu ka deey jiray markii Samaroonku iyo Somaliland isdagaalaan Ciise indhuhu ku deey jiray laakiin sheekadaasi way soo dhamaatay oo dagaalka ay iskala qayb qaadanayaan Samaroonku markii hore dagaal ka qarxay Ciise ayaa hadda soo galay iyadoona dib u gurasho xooggan ay sameeyeen ciidamada maartay beesha Samaroon halka kuwa Ciise ay hadda dagaal adag ay kula jiraan ciidamada kuwa maamulka Somaliland oo isku dayaya in ay si awood ay ku maquuniyaan beelahan kala duwan ciidamada kuwa Somaliland ayaa adeegsanaya hubkoodii ugu dambeeyay taas oo aan waxba loo reebanaynin ardaadiqad saakay la iska dhigay iyadoona beesha Ciisena gurmad ahaan ay halkaas ugu timaaday oo ay dagaalkan qayb uga naqanayso tan iyo markii dagaalkan uu bilowday ayuu markaasi geystay khasaarooyin isugu jira kuwa dhaawac iyo kuwa dhimasho ah Samaroonka dhankoodana waa la soo warinayaa dhanka Somaliland waa la soo warinayaa dagaalka inta ugu badan ama xoogiisa labadaas maartay dhinac ayuu dhaxmaray iyadoona hadda xaaladda magaalada Geerisa ay tahay mid aad u adag oo aan markaasi la qiyaasi karin xaaladda guud ee hadda ku sugan tahay dadka deegaanka qaarkood way marra isaga barakicin tan iyo markii dagaalkan uu bilowdayba maalmihii u dambeeyay halkaasi lagu dagaalamayay dadkii way isaga qaxeenba hadda waxay kaliya ku haray magaaladaasi dadkii oo meel intee aadeen ay garan waayeen kaliya ayaa hadda magaaladaasi joogo iyadoona hadda saakay la farsaaray Samaroonku waxa ay markaasi qayb lixaad leh ay jilbaha u dhigteen iyagoona doonayeen inay ka adkaadaan Somaliland iyadoona hadda xaaladdu ay markaasi ku sugan tahay mid aan la qiyaasi karin oo wali rasaastu way socotaa aag ayaanu lagu kala jiraa ma jirto khasaarooyin faahfaahsan oo soo ifbaxay balse laakiin warar way soo wada baxayaan in khasaarooyin dhinacyada kala duwan ay isgaarsiiyeen xaaladda gobolka Awdal Selel iyo waliba sidoo kale waxa ay ku jiraan xaalad markaasi culus deegaanka maartay Geerisa waxa uu markaasi ka mid yahay ama xuduud u dhaxeeya dhanna Ethiopia ka jirto dhanna Djibouti dhanna Somaliland iyadoona dagaalkan sii xoogeysanaya dhowrkii maalmood u dambeeyay haddii ay sidan wax ku sii socdaan waxa dhici karto in xaaladdu marba ka sii dambayso isii bedesho dhanka kalena haddii aan fiiriyano ciidamo ka tirsan militariga Somaliland ayaa waxa la leeyahay waxay ka soo dhaqaaqeen magaalada Boorame iyagoona ku soo wajaan halka dagaalka uu ku socdo gurmad ahaan ayay ciidamadan uga soo danaaninayaan kuwa Somaliland maadaama Samaroonku uu garab ay u noqdeen Ciise Somaliland waxay dalbatay ciidamo kale oo dheeri ah waxay hadda rabaan in ciidamadaasi dheeriga ah ee la keeno ay markaasi ay qayb ku noqdaan dagaalkan adag ee hadda markaa u dhaxeeyo Samaroonka iyo waliba sidoo kale Somaliland Ciisuna garab weyn uu ku siinayaan marka Somaliland telefoonay dirsadeen waxa ay markaasi dalbadeen in gurmad degdeg ah waliba waxa uu leeyahay magaalada Boorama ay ka soo baxeen gawaaridan ilaa iyo waxayna markaasi gaarayaan 8 gaari oo nooca Cabdibilaa iyo waliba sidoo kale gaari ambulance kuwaas oo gurmad u noqonaya
ciidamada Somaliland oo dagaalka adag markaasi ka dhaxay Boorame ayayna kasoo kactameen iyagoona markaasi rabaan inay soo gaaraan gudaha deegaankaasi Geerisa iyadoona xaaladdu aan la qiyaasi karin walow khasaarooyin lixaad leh dhinacyada kala duwan is gaarsiiyeen haddana ciidamada Somaliland waxay dalbadeen gurmud degdeg ah waxaa hadda markaasi kusii jeeda gurmudkii ka baxay Boorame iyagoona gawaari waliba sidoo kale gawaarida nooca gargaarka degdega ee ambalaaska iyagoo wata ayayna halkaasi usii ruqaasteen oo ay rabaan inay garab iyo gaashaan u noqdaan marka Somalilandna waxa ay ku adkeysanaysaa in ay dagaal la gasho labada dhinacba ay meel saarto oo ay isku dayaysaa halka ciisuhu uu doonayo in maamul guban state la yiraahdo uu dhisto halka Samaroon way doonayaan inay dhistaan maamulka la yiraahdo waa maamulka la yiraahdo muxuu ahaa awdal state ayay rabaan inay dhistaan balse laakiin Somaliland gabi ahaan way diidan yihiin in waxyaabaha ay hadda ku dhaqaaqayaan ama ay rabaan in gabi ahaanba aysan u suurtagelin ayay rabaan tan iyo markii dagaalkan uu bilowdayna way sii daba dheeraatay ciisuhu waxa uu rabaa guul Samaroonku wuxuu rabaa guul Somaliland waxay rabtaa guul laakiin xaaladdu meeshas kuma sii eko oo maalin walba waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan haddii ay naqan lahayd hubka darandoori u dhaca weeraro kala duwan iyo kuwa gaadmaha ayay isku qaadaan ciidamo fara badan ayaa halkaasi ku dhimantay waana dagaal beeleedyadii deegaanadaasi ka qarxay waa midkii ugu waqtiga dheeraa ayaa la leeyahay tan iyo markii dagaalkan uu bilowday boqolaal dhalinyaro ah odayaal waxgarad saraakiil arday intaba ay ku geeriyoodeen iyo haweenba tan iyo dagaalkan uu bilowday iyagoona beelahan ciise iyo Samaroonku ay wax badan iska laayeen markana Somaliland ay markay isdheheen way isbaabi'iyeen ayay ku soo biireen iyagana beelahooda kala duwan ay u qayl dhaanisteen haddii koow ay markaas sii qoranayaan ciidamo kale oo dheeri ah tan iyo markii dagaalkan uu bilowday iyadoo aan loogeen halka uu ku dambeyn doono qodobkeena ugu dambeeyna daawadayaal haddii aan fiiriyana waxaa la leeyahay meedadkii ugu badnaa ee ka tirsanaa askarta beesha Samaroon ayaana lagu arkaya goobta dagaalka uu ka dhacay Saakay ilaa iyo waqtigan aan idinla hadlayo ciidamo ka tirsan kuwa Samaroonka ayaana markaa dagaal adag waxay la galeen Somaliland waxaana ay noqotay in dagaalkii iyaga loogu awood sheegto lana soo sukiyo la soo jibiyo askar ka tirsan Samaroon ayaana meedadkooda lagu arkay banaanka magaalada la yiraahdo deegaanka Gaarisa waa Geerisa iyadoona halkaasi ay ka jirto xaalad indhuxuma ah tan iyo markii dagaalkan uu bilowday askartan la dilay ama markaasi meedadkooda halkaasi laga helay ayaa tiradooda gaarayaan 11 nin oo ka tirsanaa Samaroon waxaana markaasi wararka qaar ay sheegayaan in Somaliland ay markaasi ay doonayso in intaasi ka badan ay ku disho inkastoo aysan warkan ay beeniyeen Samaroonku haddana beesha ama Somaliland waxa ay markaasi ku adkeysanayaan in khasaarooyin lixaad leh ay gaarsiiyeen dhanka Samaroon marka loo eego ciisuhu markii gurmud heleen ay naftu ku soo laabatay guudaan daawadayaal intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan haddii aad halkan nala soo gaartay daawad waxaa tahay qof walba wanaagsan waxaan xasle kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gareysid muuqaalkan la garay siin share garay saaxiibada la wadaag oo kuma aysantiin daawashada muuqaalkan ma sanadin